السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولالكين أبوان حرقو يوتيوب كداوانيسان وأبوان حرقو official فضلا كسور دوادا وحان مانتا إدين هيا لبا قبضود oo isqaawiyay markii ceebtooda ay soo baxdana kadib ayadihii quraanka xasuustay magacyahood waa kuwa gabdhahaas ma soo bandhigahayo muuqaaladii fawaaxista ahaa oo social media baryahan lala dhex wareegayay balse waxaa soo bandhigaya quraankii ay aqrinayeen oo ah qaybta wanaaga qaabka ay Ilaahay u xasuusteen haddaba gabadha koobaad waa Nasteexa Indho waxaad arkayseen maalmahan in muuqaal ayado qaawan social media lala dhex wareegayay balse anigu muuqaalkaas ma soo bandhigayo waxaan soo bandhigayaa bal sida ay diinta Ilaahay iyo quraanka u xasuusatay markay ceebta ku dhacday kadib bal ila daawo Nasteexa Indho oo quraanka aqrinaysa waliba aayatul kursiga minash shaytaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم gabadha labaad waa Deeqa Afro waxay hadda ka hor soo duubtay muuqaal aad iyo aad ku cajab gelinaya markii aad aragto waxaana durbaba iska dhaadhicinaysaa inuu yahay qofka noocan sameynaya qof muslima haddaba gabadhaasi markii muuqaalkaas uu social media galay ayaduna waxay xasuusatay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxayna durbaba bilowday sida Nasteexa Indho inay quraanka aqriso bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين haddaba waad aragteen labada gabdhood markii laga soo duubay muuqaalo waliba ay ayagu gacantooda iskaga duubeen oo fawaaxisha oo baraha bulshada ayaan dhan haystay oo ay ceeboobeen oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu marada ka riday waxay dib ugu carareen aayadaha quraanka kariimka si loo cafiyo loona ilaawo fawaaxishta ay sameeyeen haddaba taas waxaa kaga tusaale qaadanaysa diinta islaamku inay tahay marjic waxaana la yaab leh in qofkii fawaaxisho galaahi uu diinta gadaal ugu laabto markii uu ceeboobo sida Fircoon oo kale Fircoon ayaa markii la halaagay oo nafta ay halka dhuunta u timid ayuu wuxuu ku calaacalay aamantu annahu laa ilaaha illa alladhi aamanat bihi banuu israa'iil wa ana min almuslimiin الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا آيات القرآن كابا إلهي سبحانه وتعالى كن يجبيي فرعون ما أنت جركيسي وحا يالا مصر ugu dambayn waxa gabdhaha Soomaaliyeed ugu baaqaya in ay jirkooda asturtaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayna ka baqaan waa walaalkiina Abwaan Xarrago fadlan YouTube-ka subscribe saar